Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Khiyaarteena aan jecelnahay habeen wanaagsan cidii ay habeen u tahay kuwa ay maalin u tahayna maalin wanaagsan adduunka dacaladiisa meel walbo aad ka joogtaan waa barnaamijkii faaqidaada cayaaraha ku soo dhawaada qodobada cayaaraha kuwoodii ugu xiisaha badnaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, fura gambaleelka adiga oo la wadaagayo asxaabtaada si ay noo dhiirigeliyaan. Aan ku bilowna cayaaryahan Harry Kane, xidiga kooxda Tottenham, gool dhaliyaha ugu sareeya Tottenham oo shandadiisa ka xirxiranayo Tottenham. Halkee buu u socdaa? Qiimo intee leeg ayuu ku bixi doonaa? Naadiguu rabaa. Cayaaryahan Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa in uu la wadaagay ama uu u sheegay asxaabtiisa la wadaagto qolka labiska in haddii xilli ciyaareedka uu dhammaado uu ka tagi doono kooxda Tottenham. Cayaaryahan Harry Kane ma uusan cadeynin naadiga uu ku biirayo, laakiin waxaa la ogahay Harry Kane in ay raadinayaan kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub sida Manchester United, Manchester City iyo Chelsea iyo Barcelona iyo kooxda Real Madrid iyo Juventus iyo kooxda Borussia Dortmund iyo waliba kooxda PSG. Hase yeeshee cayaaryahan Harry Kane waxa uu ka farxiyay naadiyada ka dheelo horyaalka Premier League asiga oo sheegay in uu ka tagi doono haddii uu dhammaado xilli ciyaareedkan kooxda Tottenham si uu ugu guuleysto koobab waaweyn. Cayaaryahan Harry Kane 10 sano ee ugu dambeysay waxa uu ahaa gool dhaliyaha ugu sareeyo ugu saameynta badan kooxda Tottenham. Hase yeeshee ilaa haatan kuma uusan guuleysan wax koob weyn markii laga reebo inuu asiga ku guuleystay abaalmarinaha shakhsiyadeed sida in uu 3 jeer uu ku guuleystay kabta dahabka ee gool dhalinta horyaalka Premier League. Cayaaryahan Harry Kane ayaa waxaa la fahamsan yahay inta ay xirfadiisa heerka sare tahay inuu ku guuleysto abaalmarinaha shakhsiyadeed sida Ballon d'Or-ka. Cayaaryahan Harry Kane ayaa hadda waxa uu qayb ka yahay ciyaartoyda xulka qaranka England ee ciyaari doono koobka adduunka iyo waliba koobka qaramada Yurub. Hase yeeshee cayaaryahan Harry Kane xilli ciyaareedkii hore waxaa doonaysay naadiga Manchester United, walow xilli ciyaareedka dhexbartankiisa ay isqabteen macalinkiisii hore ee Jose Mourinho oo leylinayay kooxda Tottenham iyo macalinka kooxda Manchester United. Kadibna uu Jose Mourinho u sheegay kooxda Manchester United in aan marnaba laga iibin doonin kooxda Manchester United. Hase yeeshee Jose Mourinho 6 bil kadib waxaa laga raacdeeyay shaqada tababarnimo ee kooxda Tottenham, asigoona hadda Jose ku biiray kooxda Roma oo sanadka dambe uu noqon doono macalinka leyliyo. Haddaba Harry Kane waxaa la fahamsan yahay in laba koox midkood uu ku biiri doono sida kooxda Manchester City ama kooxda Manchester United. Manchester United ayaa sidoo kale waxa ay raadinaysaa oo ay baacsi dheer ugu jirtay ilaa xilli ciyaareedka hore cayaaryahan Jadon Sancho oo u ciyaaro naadiga Borussia Dortmund ee wadanka Jarmalka. Haddaba cayaaryahan Harry Kane sanadkan waxa uu